بسم الله الرحمن الرحيم habeen wanaagsan khiyaarta nala socota meel kasta oo aad dunida ka joogtaan ku soo dhawaada tabinta iyo taxliilka labaad ee caawa oo aan si gaar ah ugu eegi doono wararka ugu waaweyn ee ka taagan gobolka Bariga Dhexe iyo waliba dhaqdhaqaaqyo culus oo soo kordhaya waa 14 July sanadka 2020 tabintaan idin haya waxa kamid ah dalalka Pakistan iyo Turkiya ayaa waxa ay digniin culus u direen nidaamka Israel labada hogaamiye Rajab Tayyip Erdogan iyo Sabha Sharif oo kulmay waxa ay tilmaameen Israel inay tallaabo dib u degto haddii kale ay la kulmi doonto qasaarooyin aad u xoog leh kulanka labada hogaamiye iyo waliba dooda Israel ayaa si gaar ah ugu eegi doona barnaamijka caawa wasaaradda muqaabaraadka ee wadanka Iran ayaa gacanta ku dhigtay kooxo u shaqeynaya dowladda Mareykanka xilli maanta ay qayb ka ahaayeen baaliri dhaqdhaqaaqa aasitaanka iyo sagootinta hogaamiyihii ugu sarreeya wadankaasi Ayatollah Ali Khamenei dowladda Shiinaha ayaa markii ugu horeysay shaaca ka qaaday inay mudnaan siinayso marinka istiraatiijiga ah ee Hormuz tani waxay ka dhigan tahay dowladda Beijing in ay markan doonayso qayb inay ka noqoto dhaqdhaqaaqa biyahaasi iyo waliba loolanka loogu jiro xilli ay soo baxayaan warar kala duwan oo tilmaamaya awoodaha dunida inay biyahaasi ku loolamayaan khilaaf xoogan ayaa lagu soo waramayaa qaar ka mid ah mas'uuliyiinta ugu sarreeya wadanka Iran inuu soo kala dhaxgalay kaas oo ku saabsan cilaaqaadka lala sameynayo dowladda Mareykanka xilli wadaxaajoodka iminka uu meel xasaasi ah taagan yahay qodobadaas iyo warar kale ayaan ku eegayaa khiyaarta ay nala socotay tabinta iyo waliba tusmadan gaarka ku soo dhawaada YouTube-ka oo subscribe saara oo maasantiin dowladaha Pakistan iyo wadanka Turkiga ayaa waxa ay goor dhaweyd digniin adag u jeediyeen nidaamka Israel kadib kulan dhaxmaray madaxda ugu sarreysa wadamadaasi gaar ahaan Rajab Tayyip Erdogan iyo hogaamiyaha wadankaasi Pakistan Mohammad Sabha Sharif dalka Pakistan ayaa waxa uu kamid yahay wadamada ku gaashaaman hubka nuclear-ka waxana ay siyaasad ahaan hadda u muuqanayaan in ay kala guranayaan nidaamka Israel oo ay si aad ah isku haystaan dooda labada hogaamiye ayaa ku soo aadaysa xilli khilaafaadka u dhaxeeya dowladda Turkiga iyo nidaamka Israel oo sanadihii ugu dambeeyay ahaa mid ka sii darayay laakiin labadii isbuuc ee ugu dambeeyay uu ku sigtay khilaafkan in uu sababo gacan ka hadal iyadoo walaac badanna uu gobolka Bariga Dhexe ka soo baxayo madaxweynaha wadanka Turkiga Rajab Tayyip Erdogan ayaa magaalada Istanbul kulan muhiim ah kula yeeshay ra'iisul wasaaraha Pakistan Shehbaz Sharif iyagoo ka wada hadlay xoojinta xiriirka labada dal ballaarinta iskaashiga dhaqaale iyo waliba xaaladda amniga ee gobolka Bariga Dhexe kulanka ayaa ka dhacay qasriga madaxtooyada waxana uu ku soo beegmay xilli Istanbul lagu qabtay madasha ganacsiga Turkiga iyo Pakistan oo ay ka qayb galeen mas'uuliyiin sare iyo ganacsato ka socotay labada wadan oo markaan si gaar ah u sameynaya cilaaqaad istiraatiiji ah Erdogan Israel waa inaan loo ogolaan buu yiri in mar kale ay colaad ku wariso gobolka marka la fiiriyo dhibaatooyinka hadda halkaasi ka taagan ashir jaraa'id uu qabtay kadib kulanka madaxweyne Erdogan waxa uu sheegay in dunida ay nafisashay kadib markii heshiiskii Islamabad ee u dhaxeeyay Mareykanka iyo Iran la gaaray oo ay dhaxdhaxaadinayeen dowladaha Pakistan iyo Qatar Erdogan waxa uu sidoo kale carabka ku adkeeyay in nabadda waarta ay gaari karin hal baaliri laga dajiyo meel ka baxsan gobolka isagoo sheegay in dalalka gobolku ay yihiin kuwa ugu muhiimsan ee door ka qaadan karaya xal kasta oo waara oo laga gaari karayo gobolkaasi madaxweyne Erdogan waxa uu sidoo kale eedayn u jeediyay Israel inay isku dayayso inay carqaladayso heshiiskaasi isagoo yiri waa inaan loo ogolaan nidaamkaasi hadda jira in ay mar kale ku faafiyaan gobolka waxa la yiri urka baaruudda iyo waliba daadashada dhiigga oo macnaheedu yahay in colaadda aanay sii ballaarin waxa intaasi ku daray in Ankara ay si dhow la socon doonto dhammaan dadaalada lagu xaqiijinayo heshiiska xiriirka dhaqaale ee sii xoogaysanaya ee labada dal ayaa waxa uu ka dhigayaa mid Israel walaac weyn ku haya dhinaca kale wasiirka wasaaradda ganacsiga ee dalka Turkiga Ömer Polat
ayaa sheegay in maalgelinta shirkadaha Turkiga ee Pakistan ay hadda gaareen 2 bilyan oo dollar halka ganacsiga labada dal uu marayo 1.2 ilaa 1.3 bilyan oo dollarka Mareykanka sanadkii. wasiirka ganacsiga wadanka Turkiga waxa uu sheegay labada wadan inay iska kaashanaan arrimo la xiriira warshadaha birta iyo sidoo kale qaybaha baabuurta caagaga boyri iyo kiimikooyinka elektrooniga mashiinada warshadaha qalabka caafimaadka iyo wax soo saarka warshadaha wadamadaasi oo ay hadda si weyn isku dhaafsanayaan. Ra'iisul Wasaaraha wadanka Pakistan waxa uu martiqaad u fidiyay dhinaciisa hogaamiyaha wadanka Turkiga Recep Tayyip Erdogan waxana uu ugu baaqay in uu soo gaaro wadankaasi. wasiirka gaarka ah baa yiri oo dalka Pakistan Mohammed Ali ayaa sheegay in dalkiisa uu dib u helay xasilooni dhaqaale kadib dib u habeyn weyn isagoo ugu baaqay shirkadaha waaweyn ee Turkiga inay ka faa'iideystaan fursadaha cusub ee gaarka loo leeyahay iyo mashaariicda gaarka. shirkadaha shidaalka Turkiga oo ku guuleystay qandaraasyo cusub ayaa tani waxa ka dhigaya in labada dhinac ay si weyn isugu soo dhawaadaan. Mohammed Baqir Qalibaf ayaa waxa uu sheegay in Mareykanka iyo Israa'iil ay 10 lama ilaawana ka heleen dagaalkii ay la galeen gobolka Bariga Dhexe dowladdaasi Iran. Waxa uu tilmaamay ciidanka wadanka Iran inay noqdeen kuwa geesiyaal ah oo caalamka tusay buu yiri tallaabooyin wax ku ool ah. gudoomiyaha baarlamaanka wadanka Iran Mohammed Baqir Qalibaf ayaa sheegay dalkiisa in uusan doonin buu yiri dagaal balse uu si adag uga jawaabi doono weerar kasta oo lagu soo qaado wadankaasi. Qalibaf ayaa sheegay in dalalka Islaamka looga baahan yahay in ay maanta mideeyaan mowqifkooda si ay uga hortagaan waxa uu ku tilmaamay siyaasadda cadaadiska iyo hal dhinacnimada Mareykanka oo Israa'iil u janjeero. waxa uu sidoo kale sheegay in Iran iyo dagaaladii ugu dambeeyay ay ku guuleysteen in Mareykanka iyo Israa'iil 10 lama ilaawana siiyaan isagoo xusay taasi in la gaaray adeegsiga xeeladaha dagaalka aan loo sanayn buu yiri. Qalibaf waxa uu carabka ku adkeeyay in Tehran aysan raadinayn colaad cusub balse ay doonayso qiyamka wadankeeda in ay si weyn u ilaaliyaan. dowladda shacbiga Shiinaha ayaa ku dhawaaqday in ay mudnaan gaar ah siin doonto marinka istiraatiijiga ah ee Hormuz tan oo ka dhigan Shiinaha inuu markan si toos ah u soo faragelinaya halkaasi maadaama dowladda Mareykanku ay ahayd cidda kaliya ee saameynta ku leh biyahaas kuna dagaalamayeen dowladda Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iran. safiirka Iran u fadhiya Shiinaha Muhsin Bakhtiar ayaa sheegay in Shiinaha iyo dalalka ay Iran saaxiibka la tahay ay heli doonaan mudnaan gaar ah marka Tehran ay go'aamiso heerka iyo nooca lacagaha adeega laga qaadi doono maraakiibta isticmaalaya marinbiyoodkaasi muhiimka ah ee Hormuz. waraysi uu bixiyay safiirku waxa uu sheegay in marinbiyoodka Hormuz uu hadda noqday arrin amniga qaranka Iran qusaysa kadib dagaalkii dhexmaray dowladda Mareykanka iyo Israa'iil oo weerar toos ah ku soo qaaday Tehran. waxa uu intaas ku daray in dowladdaasi ay qorsheynayso hab maamuusyo iyo nidaamyo cusub oo lagu maamulayo marinbiyoodkaasi kuwaasi oo lagu diyaarin doono iskaashi iyo wada shaqayn ay la leeyihiin wadanka Oman. safiirku waxa uu sidoo kale sheegay in Iran ay soo rogi doonto lacag loo yaqaan surface fee si loo xaqiijiyo in maraakiibta si nabadgelyo uga gudbaan marinkaasi istiraatiijiga. waxa uu carabka ku adkeeyay in lacagahaasi sida uu sheegay aysan ka hor imaan doonin shuruudaha caalamiga ah ee badaha isla markaana lagu dejin doono si waafaqsan xeerarka maraakiibta caalamiga. marinbiyoodka Hormuz ayaa waxa uu yahay kan hadda ugu weyn ee xiisadu ay ka taagan tahay ee u dhaxeeya dalalka reer galbeedka ee Mareykanku hogaaminayo iyo waliba nidaamka Iran. wasaaradda muqaabaraadka ama sirdoonka wadanka Iran ayaa ku dhawaaqday inay gacanta ku dhigtay 4 unug oo xasaasi ah kuwaasi oo doonaya buu yiri in ay howlgallo basaasnimo ah wadankaasi ka sameeyaan una shaqeynaya nidaamka Israa'iil.
wasaaradda sirdoonka waddanka Iiraan ayaa ku dhawaaqday in ciidamada ammaanku ay burburiyeen 4 unug oo ay ku tilmaameen argagixiso ka howlgalaysay gobolka Sistan iyo Balochistan ee koonfur bari waddankaasi kahor inta aysan fulin wax weerar ah sida lagu sheegay warka ka soo baxay wasaaradda. bayaan ay soo saartay wasaaradda waxaa lagu sheegay in howlgalka lagu qabtay 10 qof oo lagu eedeeyay in ay ka tirsanaayeen kooxahaasi. sirdoonka Iiraan ayaa sidoo kale sheegay in 2 ka mid ah dadka la tuhunsan yahay lagu dilay iska horimaadyo dhaxmaray ciidamada ammaanka iyo kooxaha hubaysan intii ay socdeen howlgalladaasi. mas'uuliyiinta Iiraan waxay sidoo kale sheegeen in howlgalka uu qayb ka yahay dadaalada lagu xoojinayo amniga gudaha iyo ka hortagga weerarada lagu bartilmaameysanayo shacabka xarumaha dowladda gaar ahaan gobolada ku yaala koonfur bari oo Balochistan uu ka mid yahay marar badanna ay si weyn ugu dagaalameen dhinacyo kala duwan sida dowladdaasi ay ku dhawaaqeen. xilli dalka Iiraan ay ku jiraan isbuucii sagootinta loo sameynayo aaska qaran hogaamiyihii ugu sarreeya waddankaasi Ali Khamenei ayaa waxaa la soo warinayaa in ay soo baxayaan khilaafaad u dhaxeeya mas'uuliyadda dowladda taasoo ku salaysan nooca iyo xiriirka lala samaysan karo dowladda Washington xilli dhinacyadu uu dhaxmarayo wada hadal iyo waliba wada xaajood inkastoo muddo isbuuca hadda hakad la geliyay. wargeyska caanka ah ee dalka Mareykanka ee The New York Times ayaa soo xiganaya 4 sargaal oo sare oo Iiraani ah iyo 2 xubnood oo ka tirsan ciidamada ilaalada kacaanka iyadoo khilaaf weyn uu ka dhaxurtay garabka muxaafidka ah ee Iiraan kadib dilkii hogaamiyaha sare ee waddankaasi lagu qaarajiyay. sida wargeysku uu sheegay geerida hogaamiyihii hore ayaa abuurtay firaaq siyaasadeed maadaama uu lahaa awoodii ugu dambeynta ahayd ay muhiimka ah. taas ayaa sababtay in muxaafidku ay u kala jabaan 2 garab oo muran hadda uu ka taagan yahay jihada waddankaasi uu aadayo. garab ayaa waxaa la leeyahay waxay u dhaqmayaan si pragmatic ah ama in ay fahmayaan jihada lagama maarmaanka ah ee xilligan wax lagu xeerin karo. wargeysku waxa uu sheegay in garabka uu ku tilmaamay dhaxdhaxaadka ama midka wax ku oolka ah uu aaminsan yahay badbaadada nidaamka Iiraan inuu ku xiran yahay in la yareeyo xiisadda kala dhaxaysa Mareykanka in la furo albaabka dhaqaalaha iyo maalgashiga in xal diblomaasiyadeed loo raadiyo khilaafaadka taagan. sida ay ila wareedyadu sheegayaan garabkan waxaa ka mid ah gudoomiyaha baarlamaanka Mohammad Baqir Ghalibaf madaxweynaha waddanka Iiraan Mas'uud Pezeshkian xogayihii hore ee golaha sare ee amniga Mohammad Baqir Dhulfaqar iyo qaar ka mid ah saraakiisha ilaalada kacaanka. warbixintu waxay sheegaysaa in garabka uu door weyn ku lahaa go'aanka xabad joojinta bilowga wada xaajoodka dowladda Mareykanka lala galay iyo heshiiska lala socday dowladda Iiraan ay la saxeexatay Mareykanka. garab kale oo mayal adag ayaa jira kuwaasoo ilaa iyo hadda magacyadooda la shaacin. wargeysku waxa uu sheegay in garabka adag ay si weyn uga soo horjeedaan wax tanaasula oo loo sameeyo Mareykanka gaar ahaan arrinta barnaamijka nuclearka. ilwareedyada ayaa sheegaya in garabkan uu rumaysan yahay in Iiraan ay ka faa'iideysato siyaasad iyo military waxay heli kartaba uga hortagto waddankaasi Mareykanka. tartanka looga jiro hogaanka cusub ee waddanka ayaa waxa uu yahay mid saameyntiisu ay culus tahay. warbixintu waxay intaasi ku dartay in khilaafka muuqda uu yahay qayb yar oo ka mid ah loolan siyaasadeed oo qoto dheer iyadoo labada garab ay ku tartamayaan sidii ay u heli lahaayeen taageerada hogaamiyaha sare ee cusub si ay u saameeyaan jihada siyaasadda Iiraan sanadada soo socda. digniin dhaqaale ayaa soo baxday sida wargeyska Mareykan ee The New York Times oo warbixintiisa ku yiri. sidoo kale wargeyska The New York Times ayaa sheegay in gudoomiyaha bangiga dhexe ee Iiraan uu warqad u diray hogaamiyaha cusub isagoo uga digay in dalka uu wajahayo dhibaato dhaqaale oo aad u daran isla markaana sahayda cuntada iyo daawooyinka aasaasiga ah ay dhammaan karaan dhamaadka bisha Agoosto haddii cunaqabataynta badda ay sii socon lahayd. sida ay wargeysku qorayaan ila wareedyo kalena ay tibinayaan digniinta ayaa hadda gaartay door weyn oo
la gaarsiiyay baa la yidhi go-aanka hogaamiyaha cusub ee taageerada heshiiska uu la galay Mareykanka inkasta oo markii hore uu aad arrintan uga biyadiidsanaa warbixinta xogta ay ku salaysada New York Times ayaa waxa ka muuqanaya ila aan la magacaabin oo muhiim u ah dowladda Iran sida hadalka loo dhigay habeen wanaagsan khiyaarta ay nala socotay tabinta iyo taxliilka qaybtan barnaamijka caawa lafagurka iyo taxliilinta caalamka iyo diblomaasiyadda intan ayaan ku akin doonaa qodobo kale iyo waliba tusmo kale ayaa noo soo socota ku soo dhawaada YouTube-ka oo subscribe saara nabaddiino